ciidamadii haddaba talada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa ay yihiin waxa ay kala miirmeen kowdii bishii November sanadkii 1969 oo la soo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood. su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegeystayaal ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan. cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1972 waxa uu weydiiyey goorta ciidamada xoryahooda ay ku laabanayaan. waxa uu ku jawaabay wallahi jeel hadalkaas waa balbalaaraya wuxuu u balbalaaraya sida hadda adigu u fakarayso ama hadda meesha ka timid looga fakaro iyo sida halka aan uga fakarayno waxa suurtooda inay kala duwan yihiin. marka haddaan ku jawaabo sida halka uga fakarayno baan kugu jawaabaya waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeraleyda iyo dadka shicbi weynaha iyo askarta inay dad isku dadayihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalabta hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa ama annaguba hadda aan qabno in laga fiirsado inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay manin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dibkana uu dibkiisa yahay dantanada annagu nooga shaqeynaya Soomaalina khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beer nagu dul samaysanaya oo daar nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala meel ka buuxsanaya Soomaalin daacadaho xuquuqda jecel iyo horowkaca ummadda kulligeedo idil annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa. marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya يعني مثل حكم عسكري باتري أنا مو يهدي أنا واجي ورا عسكري أهان شفت دان اللي قلت المامين انتيسي كيا هي صوتك كده اللي يرضى متعلمين تا والرعاية تا وضلك تشوفي صو ما هي يعني حتى بس واحد اللي ميدا وجه دوا قرنا هي election قرمات صنين إنسان أياد إلى هذا تاخذ الصعوبات حقين أساس باللوجو فكر هي واحد صنين دونا مركي ضدكو وهذا بهار في عم بصمرة هي أي maskaxdiisu ay sida aan u sheegay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa marka talada ay goosanayaan iyo ninkay xulanayaan labadaba ay yaqaaniin mid wax ugu yaala oo iyaga maslaxadooda hogaaminaya inuu yahay mid maslaxadooda ka horjeeda inuu san noqonin